أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحين عاو بلسنهاي موضوع runtii aad muhiim u ah nolosha qofka muslimka ah iyo qof kasta oo bini aadam oo ku saabsan almaal xoolaha ku saabsan iyo fil islaam maxaa maal loo yaqaan waa maxay dawaabida maalku uu leeyahay iyo mucaamalaadka qaarkood mucaasirka inaan wax ka tilmaano haddii waqtigeena ku sugan insha allahu tacaala khaasatan xilligan aynu ognahay adduunku inuu aad u horumaray oo technology-gu uu wax badan bedelay waxaynu maraynaa hadda casri ilmuhu ay la tacaamulayaan artificial intelligence waxaad ogtihiin sanadkii hadda lasoo dhaafay December Google inay faafisay OpenAI sida ChatGPT oo la tacaamulkiisu u baahan yahay in aad loo fahmo waxaana ka dhalanaya tabiicaad fara badan oo u baahan in la fahmo xagga shareecada naftigeeda waxaa jira cuquud fara badan oo technology based ah sida la yiraahdo DeFi applications centralized decentralized financial applications NFT waxa la yiraahdo smart contracts iyo wax la mid ah waynu ognahay sidoo kale kacaanka uu dhaliyay waxaan leeyahay cryptocurrency-ga iyo technology-ga blockchain technology yani kacaanka uu dhaliyay oo u baahan in takhriij loo sameeyo fiqiga mararka qaarkood waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in dib loogu noqdo bal usuushii iyo qawaacidii islaamku u dejiyay maalka iyo wax la midka ah runtii munaasabada ugu muhiimsan oo nagu bixisay inaan maal ka hadalno waxaan isleeyahay inagu haddaynu Soomaalinahay problemkeena siyaasadda oo hadda ay ka mid tahay waayadan magaaladan iyo Puntland haysata iyo amni xumada saldhig waxa u ah maal jacayl baa saldhig u ah sababta kuwa xukunka joogaana waxay rabaan inay ka kasbadaan oo ka cootaan kan markaa raba kursigana wuxuu rabaa inuu isna ka cooto hadafka ugu badani waa siyaasadii oo la maal gashaday waa shortcut way oo maal lagu kasbado yani waa dariiqo sahlan oo qofku uu ku noqon karo billionaire ama millionaire uu ku noqon karo idinku waxaad fiirisaan intii qabatay manaasibta intaana mansibka qaban maxay ahaayeen iyo hadda maxay yihiin waxaynu ognahay in wasiir dhan oo ka mid ah wasiirada federaalku uu baarlamaanka la hortaagnaa haddii boosas hor la-aan helana qaraabadeedan geynaya soo maahayn yani waxay kutusinaysaa in waxoo dhan uu yahay waxa loo dagaalamayo ama dadka loo qixinayo ama loo laynayo dadku xoogoodu waa in laga shaqaysto meesha ama contractyaal lagu helo iyo wax la midka ah marka in la fahmo maalku islaamka muxuu ka jooga qawaacid muxuu leeyahay run ahaantii aad bay muhiim u tahay waana ogtihiin ummadaha nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inna likulli ummatin fitna ummad kasta waxa leeyahay wax lagu fidneeyay reer bani israa'iil fidnadu waxay fi nisaa وإن فتنة أمتي المال أمتي waxa lagu fidneeyay waa maal qofku haduu maal arko waxa laga yaabaa inuu san u eegin ma xalaal ba mise waa xaraam marka aan saan leeyahay waadadu kama duwana dadka yani waa ula sameeyeen madda lacag noqdo lacag waa cunus yani xalaal iyo xaraam kay tahay waxa laga yaabaa qofku inuu aabayeen waa laga yaabaa dadka hadda aan ka hadlayno siyaasadda ku dhibaataysan xoogooda inay background wadaad leeyihiin وإنه ما سر maaha wax qarsoona maaha marka maalka in la fahmo runtii aad bay ahmiyad weyn u leedahay nacam maalku ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay noloshani wax ay ku taagan tahay oo qiyaaman linnaas dadka masaalixdooda baa ku taagan lagama maarmo masaajidaynu ka dhisanaynaa ilmaha iyo reerkaynu ka biilanaynaa مشاريع وين ومدى حقبانيسا إنه كوحينينا هدنا دينع كلنا ومحنة إيو اختبار إنما أولادكم إن أموالكم فتنة يعني دينع كلام مركا لقى فينا ورنتي امتحاني اختبار مركا محوية مال إسلامكو
inaynu fahamno runtii aad bay u tahay daruuri waxaan rabaa marka in aan dib ugu noqon haddaynu fahamno tacriifka iyo definitionka waxa maal loo yaqaan way sahlanaanaysaa qofku iyo qawaacidda ay leedahay maalka in lagu intifaaco maxay tahay in qofku uu noqdo faqiihu nafsihi oo qofku isagu isu fatwadaan cid kale u doonan inay wax u sheegaan waxaan rabaa marka inaan culimmada muslimiinta iyo fuqahada madaahibta kala duwan qaarkood ka soo qaado tacriifka horta maxaa maal islaamku u yaqaana maal muxuu u yaqaana inagu kelmadda af soomaali maal haddii soomaali loo bedelo soomaaligaguna aad uma xoog badna waxaan u malaynayaa xoolaynu u naqaan saasaan u malaynaya hantiduna waa wealth waa laga yaabaa inay dhinaca ka tahay ya mood iyo noolku waa labadiba waa soo hoosgelayaan marka adigu uun qofkaas waa nin xoolale waa qof xoolale qofkaas xooluu leeyahay yani xoolaynu u naqaan sababtoo ah maalka aynu haysanaa asal waxaa u ah xoolo nool maalkaynu haysanno innaga ree dhaqan ahaanba asal waxaa u ah xoolo nool oo ari iyo geel iyo lo baynu asalka dhaqanaa markaasaynu wixii o dhan waxaynu ku magacaabnay marka xoolo saasaan anugu isleeyahay baynu u naqaana almaal englishka naftigiisa kelmadda almaal ma sahlana in loo helo kelmad u dhiganta ma sahlana money wealth fund yani kelimaad fara badan baa macaanidii oo kale finance oo tamwiil ah baa soo gelaya laakiin kelmadda almaal luqadaha kale xataa wax saa ugu dhigma waa adag tahay carabi waa wealthku marka waa hanti bay noqonaysaa sarwa carabiga waa sarwa kelmadda wealth u dhigantaa waa sarwa marka waa carabigu runtii waa luqad ilaahay qur-aanka u doortay waa luqa qani ah marka almaal maxaa la yidhaahdaa ibnu caabidiin wuxuu yidhi almuraadu bilmaal maa yamiilu ilayhi اطabcu kelmadda maal waxaa laga keenay iilasho maa yamiilu ilayhi اطabcu waa waxa qofka dabcigiisu raacayo waxa qofka uu damaacinayo waxa inaad haddayba kugu bixiso ciidba ha noqoto u fiirso ciid ha noqoto saala ha noqoto yani qofku hadduuba waxaa damac ka galo maa yamiilu ilayhi اطabcu waa maal ويمكن ادخاره لوقت الحاجة هذانا لا كيدين كرو وين قفكو دماعيو إلى حلقة استعمال كيس انتفاع عيسى وقبا هنا ينا وحا كيدين كرو ومال وتعرف سهلا لبا أرماد بو كشاقي إنو قفك نفتيسو أي راعيسو إنو وحلا كيدين كرويه إلى حلقة وقت الحاجة الشاطبي يسوي حكومة كتعريفي مالك هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه ووحا قفك ملكين كرو وحا قفك لكلقون نغن كرو وحيازة وحا إنه قفك ملكين كرو حيطان قشن كرو وحا قفك كلا كحريسان كرو حولها إنا الحركو حريسة أضال مركا وحا داد سو حريسان كرتو واد ملكين كرتو وجهك سحدا أنا أتكو قادته ومال kii hore shardigiisu maxaa inuu kaydsan karo kana waa qofku inuu xeraysan karo waxaadan xeraysan karin adigu ma lihi yani daaq halkaa iska yaal ama maaragtay ugaar duurka ku jirta deegaanka ugaarteeda anigaa leh dicdina kaa yeeli mayso sababtaa wax xera kugu xeraysan maaha marka qofku waa inuu wixii horta xeraysan karo oo uu mulkin karo sheekii horena ibnu caabidiinna qofku uu kaydsan karo ibnu lcarabi علماء المالكية كمذا سوى يرين هو ما تمتد إليه الأطماع ووحى قفك وطمعين كراء نفت راعيسه ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به شرطك لو كحله سيدا عادة شرعي كان إياه وحا لقو انتفاعي كرا وإنه وحي وحا ترى يلقو انتفاعي كرا هدانو هاي وحا لقو انتفاعي كرا مال ماها وحا كده لنا إياه هدي قف إتلافيه هذا ملاقب سنة يعني marka la waa lagu intifaaci karaa qofka haduu waxaan lagu intifaaci karin uu maal ka dhigto oo qof kale ka burburiyo ama uu ka xado ama uu ka dhaco looranayo qofkaasi xoolo ka dhacay qofka maal buu ka dhacay yani taariiftan runtii cilm waxa ku jira ahkaam baa ka dhalanaysa fara badan yareen yani wayasluhu aadatan wa shar'an lil intifaaci bi السيوطي يسوي الإمام الشافعي كوريه إنه يري لا يقع اسم المال
إلا على ما له قيمة يباع بها مال كالاسم كيسو كل عميو إلا شيء قيمة له value له لإيبين كرو قف كلا لقى إيبين كرو دمان بولي عن دمان وين ترى دمان يقف كلا إلا لقى إيبيو وين لقى إيبين كرو وتلزم متلفه قفكي وين غلط قفكي بإتلافية أما مال كاس كحد قدبنا غرامة إنه تعويضية لقربه يعني لازم يكون غنس هل كان مركز إمام الشافعي يسوي كدري تعريف كيف فاليو إنه لا يشيء قفك لا دمان قرين كرام باهي دبولي باهي قفك لا دبولي حنابلة يوحد المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا مال وحال يرى وحكستو إن لا استفاع سلاء بنانته وحال وحربها النقض نفعه ابن عابدين يعني هراء وكله في كل الأحوال ويباح اقتناؤه بلا حاجة قفكنا وكيتسن كرو سغون باهي وقبل طبعا وحو قفك ضروره وقبل waa meeshaada laakiin waxa aan daruuro u qabin oo kaydsan karo intaas marka waa taariifka muxuu yahay maal lugha mu'jam lughat al-fuqaha li Muhammad Rawas qal'achi soo wuxuu ku soo ururshay yani taariifka aan rabnaa ku soo ururino wuxuu yiri al-maal wa kullu ma yumkin al-intifa'u bihi وحكستو الله انتفاع سنكره مما أباح شرع الانتفاع به أو وحي شرعه وبنيه إن لقوا انتفاعه وحتى وحيالا شرعه أنا بنيه إن لقوا انتفاعه سيد النجاسة وكله يوح لمتك وحيالا شرعه سنبنين لكم تشرين مما أباح شرع الانتفاع به في غير حالات ضرورة سلمر كان أي كتشرين حالات كضرورة حالات كضرورة سبت حالات ضرورة قفك فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا جناح عليه قفك مقتي قفك وعنك رسومه في حالة ضرورة مركا مال لغنمي انت مركا وامحي مال بينه كيوغ من تعريف كيس فاكت مالكو قرآنك وحو كسو أروري كلمة مال سداتا إلى اللحجر حكتنا ساهمية ومالكو ليه ضوابط مالك إن لغو انتفاعه محاقة واه شروط أما كرايتيريا محاوة كرايتيريا ذا ودقن مالك إنه قلت فاع وامح يعني وين الشيء مالك إنه يوحى نفسه أي راعيسه إسلام مركان قفك أو كيد سنكره إن لقوا انتفاعنا شرعا وعادة أي بنانتهاي قفكنا وملكين كره يعني مالك وحدانا مركا waxay soo gali kara dhagxaan baa soo gali karta ciid baa soo gali karta lacagtii baa soo gali xooliin nool baa soo galaya wax kasta oo taariifkaasi uu ku dabaqmi karo wuxuu noqonayaa sharcan maal buu noqonayaa in marka lagu intifaacay waxay leedahay dawaabit iyo dariiqa lagu bixinayo maalka iyo sida qofku uu intifaacsanayo waxay leedahay criteria iyo dawaabit bay leedahay قرآن رب سبحانه وتعالى وحير يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون كوا إلهي سبحانه وتعالى رميه كلوا من طيبات ما رزقناكم وحاد عنتان وحان إذا كوا رزاقنا كوا هذا حلاشا هل كان مركب ضابطك كوا وين أركضنا وين حلالي يصير حرام هاي واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا حرمي زينة رب سبحانه وتعالى أدمدي سؤوس وصاري يعني مالكو قفكو إنه هنتيلا نقضو أو مال غبان نقضو سيادة ممنوع معها إسلامكو مورا قفكو فقرها نقضو ويانا حوالا كسبا لكن مهمته وحيتهاي والطيبات من الرزق الطريقة أو كسباني با مهمة قفكو إنه مليونير نقضو دباتا ماله لكن طريقة ذهبه مالك كو كسبنا يابا مهمة مركز زينة رب سبحانه وتعالى النمعة إلهي قفك حاران ماها إنه النمعة إلهي كسب إنه قفك حرقوه إنه حول كسبه إنه قارف في عنوته إنه دار قروح بدن قفك سميسته إنه هنتيله وين النقضه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم غاربا مليونيرس أها مركز الله في ريح اللي كان تامس كان صوبته عثمان بن عفان وكلا رضي الله تعالى عنه وخلفاء الراشدين كمذا waxaa dhici karaysa inuu ciidan dhan maal geliyo jeesh dhan inuu maal geliyo yani waxay ku dagaal gali lahaayeen wad garan kartaan qofka ciidan dhan maal gelinaya hantidu haysto inta ay laagta marka qofku inuu hantiilo noqdo mushkilo maaha laakiin mushkiladu waa qofku dariiqada uu maalka ku kasbanayo wax ay noqonayso
النبي صلى الله عليه وسلم وحيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وحنا وحبا وصدقيست لبست يعني قفك انت اصلا waa wax banaan cuntada ta ugu wanaagsan ha cuno maqaaxiyaha kuwada ugu fiican ha fariisto yani qofku inuu wax cuno oo wax abo mushkila ma غير مخيلة ولا صرف kaliya waxa mamnuuca qofku inay si khuyala ah u isticmaalo istusay isku weynayn iyo saraf waxa weeyaan qofku inuu xoolo iska daadaadiyo oo tabdiir wala tubadir tabdiiran in almudirina kaanu ikhwana shayatin marka shan waxaan ku soo koobi karnaa dawaabidan lagu intifaacayo maalka taqriiban ilaa 8 baan ku soo ururinaa marka oo aayaadkani hadda aynu akhrinay xadiisani ay tilmaamayso ahkaamta ka dhalanaysa koow wa tahri al-kasb al-halal at-tayyib wa tajannub al-haram wa ma yushtabahu fihi qofku inuu ku dadaalo al-kasb al-halal inuu qofku xalaal kasbado wanaagsan xaraamtana iska ilaaliyo runaantii waxaad ogaataan qofku in wixii uu heli lahaa marna aysan seegayn nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha fa ajmilu fi talab yani ma jirto naf dhimanaysa illa wax alla wixii u qoraa oo dhan haday xoolo tahay haday ilmo tahay haday dhaqaale kala tahay waa tiha shawi laakiin fa ajmilu fi talab sad wuxuu raadinaysaan hagaajiye dariiqadaad wuxuu ku raadinaysaan hagaajiye marnaba wixii idin qornaa idin dhaafi maayaan marka taxarri kasb halal at-tayyib inuu qofku kasb halal ku dadaalo wa tajannub al-haram wa yashtabu fi daabidka labaad waxa weeyaan cadam su'aal an-nas wa takaffufihim dadka inuu qofku wax weydiisan dadka qofku inuu wax weydiisan oo gacantiisa cuno amalu yadihi qofku wuxuu cuno waxa ugu wanaagsan عمل يده قعنتيس waxay kasbatay nabi sallallahu alayhi wasallam aad buu uga digay dadku inay dadka wax weydiistaan bal wuxuu ba sheegay qofka dadka wax weydiisto oo bariyo inuu qiyaamada imaadana walaysa fi wajhihi iyo wax hilib lahayn wajigiisa oo diiran buu qiyaamada imaanay al-yad as-sufla wal yad al-ulya yani nabi sallallahu alayhi wasallam suu kala fadilo wada ogtiin qaar buu wuxuu kula galay asxaabta bay'ada inaana qofka waxba weydiisan sidaba markaasay waxa dhici jiray ninka saxaabiga hadii uu isagoo saaran faraskiisa uu sawdku ka dhaco jeedalku dhulka kaga dhaco qofka dhinac taagan ma oran jirin idib intuu doogu soo qaadan jiray wuxuu ka cararayay inuu qofka wax weydiisto yani weydiisadku wax aad foolxun su'aalu naas qofka hadii ay naf u jooga xataa waa inuu iska ilaaliyo karaamadiisa waa inuu ilaashado wama yuhni Allahu fama lahu min mukrim qofki ilaahay dabcan uu ihaaneeyo malaha qof karaameynay su'aasha dadku waa wax waxa kale oo iyadana kamid ah saddexaad cadam tabaa'us wa idhaaru al-faqr wal maskana qofku isagoo waxaysta inaanu muujisan inuu faqri yahay iyo dulnimo muujisan qof caaga hantiila ay madin wixii ka baqtanayo wama bi nim'ati rabbika fa hadith yani qofku nimcada rabbi subhanahu innahu wuxuu jecel yahay biiri ilaahay idha an'ama 'abduhu an yura atharu ni'amihi alayhi qofka hadii ilaahay u nimceeyo waxa la rabaa rabbi inay ka muuqato maaha istus qofka laakiin waa inay ka muuqato nimcada rabbi yani maaha macnaheedu qofku inuu israaf sameeyo waa fiicanta qofku inuu usan israaf sameyn laakiin haddana qofku inuu maskana iyo idhaaru al-faqr u muujiyay wax saxan ma waxa kale iyadana mamnuuc cadam tadarruc lil maali wa sharahati lima fi aydi an-nas qofku inuu san أن الله يستشرف فيما أيدي الناس يعني قفك وإنه سن دتك كلا وحي هايستان وهقل تاجن وهقل تاجن والغنى غنى النفس وحكلا كم ذا عدم الاستطالة على الناس وخاصة الفقراء والضعفاء قفك إنه دتك وقف عن حولها وأنا كن قن اسموتشن إنه حول الليل وحكلا ضابطك ودم بيا أي تهي الثناء على الله بما هو أهله وحمده وشكره على ما أنعم وإنه رب سبحانه وتعالى كل شكريه ربي وحا أسيي أو ربكم هذه أنت أسمرك وقابك وقفك أي تاي إنه انتفاع وحنا هذا نحن أمرك كدقنا فقرة أنا وحنا كدقنا الفتنة التحذير من الفتنة بالمال تذكر إن مالك كفد نوبان نبي صلى الله عليه وسلم آدم وقدقي وحنكو صورون يا الله حديث بدو النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم
إلهي بان كل أرته فقر إذن كبقمي ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم نبي حليه إله بان كل أرته فقر إذن كبقمي لكن وحن إذن كبقيا إن أدونك اللي إذن واسعي رنهانتي سينو هانشرني مقالة إن نقروا يسينو نهاي يعني إننا قرن كنا إلهي أنتو رزقنا نواسعي يعني فوالله هذا صوماليا runtii majaaca wax la oran kara ama gaaja kama jirto laakiin aqal xumaa ka jirta iyo suul idaara xoolihii oo si aan loo maamulay baa ka jirta laakiin faqri iyo baahi runtii hadda arkay asbuucan ama bilahan qof gaajo u dhintay inta hadda masaaj ku jirta ayaa xasuusan kara way jiraan dad baahan laakiin qof la yiraahdo gaajo u dhintay wuxuu cunuu waayay waa yartahay marka saadaraad ilaahay subhanahu wa ta'ala yani faqr idin kabqa mayulay nabi sallallahu alayhi wasallam fa wallahi illa al-faqr akhsha alaykum walakin akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busatat ala man kana qablakum in adunka la idin waasiyo sidii ku idin ka horeeyay loo waasiyo fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktum in aad ku tartantaan xoolihi sidii ku hore ugu tartameen oo marka ay tartanka xoolaha iyo ganacsiga iyo maalku idin halaajiyo sida madar ay u halaajisay حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال هرين أصوت المال سيدو كلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم أجر عظيم إذن هرين أصوت المال صورك قفك السيابو مالك وقف النوبي كرا تصاليان هذا نكبحين يعني مجالاتك مالك قفك وقف النوبي كرا وحكم إذا كو قفك يناسنو آبيالين ماسترك يسد حوله كسو غليه طريقه بي xoolaha ku soo galay qofka aan isweydiiyo xoolahani طريقه bay kugu soo galaysaa ma xaraam bay kugu soo galaysaa ama xalaal bay kugu soo galaysaa wadna ogtiin nabi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri qofka qiyaamada waxa ugu horeeyo oo la weydiinayo la tazaalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba' ila afra waxa la weydiiyo waxa ugu horeeyo la weydiinaya waxa kamid ah مصدرك حوله كسبده حقابه كسبده النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة سوك لو يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام ومدى وحا إيمان دون حل قفكو أن أبيل ماشو وحكا كسبانيو حلال بقى مسوى حرام حلال بقى قفكو كسبانيو مسوى حرام وحن فيلا يا هذا حل يدو أكلوات شوقنا مرة فربدا وحانا صوم مرية مشاريع قفكو أنا قرن كريم وحنا محلال بمسوا حرام هذا ندتك أنا لقى الريبي كريم يعني لقى نهين كريم أنت صوت شرب أنا صومرتي سؤال الله وكم حدنا قاركود خاصة إنه الصومالي هذا النهاية وحقاد استهلا ويقول لك نقوليهين إن لقول مشاريع بوجس مشاريع أن أصل حتى لهين وقفك الله وش كينا يواد كوهد ميسا مدير كوبان بهبرو حتى انت قلت لي كو هيستان صفريه ودكتين هذا مشاريع لا اسكو دحو بونز سكيمز وهذا حاسه waxa socday wala bonus schemes forever living وين soo marnay maxaa kale kamid ah kuwa tiyaana forex waa kamid ah oo malaayiin dad lagu dhacay oo qofka si kastaad uga digto hadana aan laga kari karin sababtoo ah yani qofku wuxuu isleeyahay hanti baa si degdeg ku helaysaa fiirin ma waxaan ma xalaal baa mise waa xaraam habeen baan halkan ka jeedinay mawduucaas forex-ka dhow sano ka hor ilaa iyo iminka YouTube-ka ku jirta muhaadaradaasi dad baa soo comment gareeyo aan su'aalahooda ka jawaaba ilaa iyo iminka hadda laba maalmood ka hor saddex maalmood ka hor nin baan u jawaabayay oo wali ku doodaya wixii waa xalaal soo ma garan yani waa ilaa iyo iminka marka dadku mar hadayba arkaan waxaasi xoolaad ku helaysaa ma xalaal baa mise waa xaraam lagama waxa jirta multi level marketing wax la yiraahdo barnaamijkan hada forever living oo aan isku daynay xataa dadka wada barnaamijka gacanta ku hay inta la kulanay inaan isku dayno inaanu ka dhaadhicino war waxa kani waji sharciya ma lahan hadana waxa ka soo dadkii oo ku wada dhacay khaasatan dadka masaakiinta ah oo aan waxba haysan ku dhacay marka qofku
inuu isweydiiyo maalka mastarka uu kaa soo galayo ma xalaal baa mise waa xaraam. waxaa kale oo muhiima qofku yani waxyaalo ugu fidnoobay maalka waxaa ka mid ah inuu xaqii rabbi ku lahaa maalka qofku uusan ka bixin sida zakadii iyo sadaqaadkii oo ka mid waxaa ka mid qofku inuu maalku ka mashquuliyo waxyaalaha suwarka lagu fidnoobay daacada rabbi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum wa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun. waxaa ka mid a in qofku uu u isticmaalo maalkiisa uu ku bixiyo dariiqo aan xalaal ahayn sida maalan hadda innaga problemka inuu ku weyn oo kale qofku inuu kursi ku helo qofku inuu kursi ku raadsado oo wax uu ummadda ula siman yahay inuu lacag ku helo oo ku gato codkii in la iibsado oo qofku uu isku dayo inuu boos ku helo booskaa ha noqdo mid siyaasi ah ha noqdo mid shaqo dowladeed oo kale oo laaluush lagu bixiyo ama ha noqdo yani mid shirakaadka private sector ku doon ha noqdo qofku inuu maalkii u adeegsado oo ku bixiyo wajaan saxayn. intaa marka muqadimo guud oo maalka baan uga baxay insha Allah taala waxaan rabaa marka inaan galo mucaamalaadka maaliga mucaamalaadka maaliga ahi waa qofku mucaamala waad aragteen fiqiga axkaamta ilaa 4 section bay u qaybiyaan kutubta fiqiga ama 3 mararka qaarkoodna 4 section waa alcibaadaat oo tahaaradii ay ugu horeyso iyo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii badanaa ragga manhaajka akhriya iyo fiqigu kitaabada yani cibaadaadka ma dhaafaan yani waxaa ku xiga inta badan mucaamalaad baa ku xiga almucaamalaad oo wax alla wixii nolosha adduunka ku saabsanaa iyo dadku ay u tacaamulayeen iyo amwaashi iyo wax la midka waxaa soo gelaya ama laga saara mararka qaarkood alaxwaal shakhsiya oo qaar gooni loo dhigo marka mucaamalaadka lagu daro qaybta saddexaadna waa jinaayaadka marka mucaamalaadku waa wax alla axkaamta ku saabsan nidaaminaysa dadku amwaasha qaabkay ugu tacaamulayaan wax kale iibsigii iyo ijaaradii ganacsigii waxaasoo dhan bay mucaamalaadku ay kulminaysaa. tacaariifta waa ka gudbaya insha allahu tacaala mucaamalada si waqtigaan u ilaalino waxaan rabaa keli ah inaan ilaa 5 daabit ama qaacido oo mucaamalaadka maaliga ah dabdinaysa inta aanan amsilada mucaamalaadka khaaska aanan gelin. 5 marka daabit waa 5 daabit oo muhiim ah oo qofku uu ku kala sooci karo mucaamalaadka maxay yani mucaamalaadku waxay doonaan bay noqon karaan maaliga islaamku yani wuu furay cibaadaadka oo kale saad ogtihiin waxay u baahan yihiin tashriic cibaadaadku u baahan yihiin nusuus bay u baahan tahay waa tawqiifi waxaa la yidhaha qofku cibaado ma soo kordhin karo ilaa inuu daliil sharciga u haysta maahan laakiin mucaamalaadka waxaa furan creativity-ga innovationka hal abuurku waa furan yahay wixii adduun ku saabsan hal abuurku waa furan yahay nabigu sal lla ly slam wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimaha adduunkiina idinkaa u aqoon leh marka wax alla wixii adduunka ku saabsan waxaa furan dadku inay afkaar hor la keenaan in ay mucaamalada hor la soo kordhiyaan xataa nidaamka xukmiga dariiqada xukmiga la isu xukumayo islaamku ma xadidin dadku iyagaa la imaan kara afkaar cusub oo qaabka isu xukumayaan wuxuu noqon karaa qaab boqortooyo wuxuu noqon karaa qaab doorasho wuxuu noqon karaa qaarkii la rabo 4.5 aynu ku dhaqmi jirnay iyo wax la midka ah yani nidaamka xukmigu waa wax furan iyo mucaamalaadku islaamku ma xadidin laakiin waxaa loo sameeyey criteria la rabo nidaam kasta iyo mucaamalo kasta waad ku tacaamulaysaa waa in criteriadaas ay buuxiso ama laga eego criteria marka ilaa 5 criteria baan rabnaa inaan isla fiirino inta haddii qof walba barto 5taas mucaamalo kastoo timaada qofku isagaa judge garayn kara inay waxaas wax bannaan tahay inaan bannaanayn. asalka koowaad al-asl fi al-mucaamalaat al-hill wal-ibaaha mucaamalaadka asal waxaa u ah inay xalaal tahay oo ay bannaan tahay yani taa macnaheedu waa daliil lagama rabo haddii mucaamalo cusub aad soo kordhiso nooc business model cusub aad soo kordhiso business model cusub aad soo kordhiso oo hore aan loo aqoon
أفكار عصب الله تمات كو جناح سنيس فكر كاس عصب دليل إن الله تمات لجويدية إنه بناية هي حق لجوجو ماله لكن قف كم منعنا يا وحلا جرب الدليل إنه ممنوعته فهمت صوما البلوك تشين استعمال ديجيتال يعني وحون أفكار عصب الله يمو فكر كامرك عصب قفك إن الله تمات وكوب الناتي لكن قفك كورنا هو ممنوع بقى وحلا جرب دليل ولا يما دليل ولا يما مركا أصل كقوات ومعاملاتكو إنه حلال تهي ويبنانتها أصل كلابات يعني شنتا أصل وحن جعلان لها يقف كستوي حفظيه وعاوة ويران محاضرات مركي دماته تيكوي وحل يرادا باجر قفك وحو كلا تغيا شنتاس إنه قف كستا يقانو قاعده ومعاملة كستا أي قفك إنه كفل قفك نود قرين كرا أما قران كرا وقران كرا موبايلك تكون قران كرتا حاجة قلم تكون قران كرتا ويران مركاد عاوة كتب حديد مساجدك شنتاس وحي نقونيسا تيكوي قاعد كلا تغيسي haddii aad xasuusan karto taariifkii maalka iyaduna waa ka sii fiicnaan lahayd waa maxay maal taariifka haddii qofku uu hadhow garan karana waa fiicnaan lahayd ka koowaad waxaynu nidhi waa alaslu fi mucaamalaadka asal waxa waa alxil walibaax inuu xalaal yahay oo bannaan yahay oo qofku fikir kasto aad keeni kartaa daliil uma baahno kan labaad wuxuu yahay asalka labaad an takuuna almucaamala dadku waxay ku tacaamulayaan وإن نقطة خالية من الغش والكذب وإنه ترى authenticity هي honest وإن غش هي كذب كمرنت قفك وإن هذا واحد بينه الشيء بيهان إن ترى هذا ليبل بهالك أكو قرن ليبل كاسده وحوي الشيء إن pH كيسوي 7.1 كولورات آيونس كوتشرا إنه 1 ppm أما 1 ملغرام بر لتر سلفيت آيون كونوعاس TDS كود هو 30 يعني extremely low 30 ppm marka in aad saa labelka ugu qorto laakiin haddana in reality ay ka duwan tahay aysan ahayn waa qish Soomaali waa qish sadaraad dadka biyahan oo kala sameynaya iyo waxay u baahan yihiin labelkan waan ogahay inaanu reality ka tarjumayn sababta duway baa lagu soo daawacaa isagoo kartoomo ah qofku keensanaya malaha laab la mariyo iyo test la sameeyo biyaha waa lagu shubaa labelka lagu dhajiyaa Soomaa sababta waxaan rabnaa caagadaha banaanka laga keeno labelka aynu aragnay waynu ku qurxinayna marka laakiin runtii ahkaam baa ka dhalanaysa waxa ka dhalanaya qish baa iman kara waxa iman kara kadib baa iman kara been baa iman karta Soomaa yani waa inuu marka ka muaamaladu ka maran tahay qish iyo kadib shay baad iibinaysaa shaygaasi waa inuu yahay waxa aad ku sheegtay waa inuu yahay ويد هذي تاي جرامك هذي صفات كلا أي تاي وين سدية قارب هذا إيمان إيسا قارب هذا وين هذا علاد أقارن قفك عيب أقارن وين هذا الشيء ما لنا حاسة ما حنكت هوتيل عند الجنام قال نقروه مليار كل حكتام حنكت مشين كان تمها يلقوا قابي أيام كيف شيء مركا ورنتيس مركا waxay u baahan tahay adigu mowduuc ama biyaha noqdo ama ay product ha noqdo waa inuu qishka maran yahay iyo kadib nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fa in sadaqa wa bayana burika allahuma fi bay'ihim la waqti wax kala gadanayaan oo ka run sheegaan oo cadeeyaan aysan qofka u qarin ilaahay waa u barakaynaya wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihim okay maghashana falaysa minna maghasha falaysa minna wa kalabaad قاعدة صدحات ألا تكون السلعة المراد بيعها محرمة في ذاتها شيء اللي إيمانيا وإن السديسة في ذاته محرم واحد يعني شيء أشياء واحد شره سيودة محرم واحد إلا استعماله مركا إن هذا سديسة محرم واحد إن هذا استعماله شيء قطوانه يعني ماتيريال ممنوعه وينو سنهين ماتيريال ممنوعه وينو سنهين مثلا دراجز او كله الا يبي هو ممنوع شيء marka بيع قلي ماي دراج قاتكو هذا بيع ما قلي امس قلي ماي بيع قلي ماي شيء يعني في ذاته حرامه بيع ما قلي وانا نجاسدي سدا وحي حرام بيع قلي ماي hilibkii doofaarka بيع قلي ماي يعني شيء markii uu yahay sidiisa ahaan muharram uu yahay بيع قلي ماي وانا marka saddexaad shaygu وأنا نسديس محرم واحد كان أفراد
وإنه كمرن هي غرر وإنه كمرن هي جهالة الغرر وحال إلى هذا غرر هي جهالة محيو كل دوين غرركو قفكو إنه ده وحن إيبين يا شيء أنا ديليفر قرين كريم يعني شيء وسن لحسلين كريم قفكو شيء كان قفكي مسين كرو هدي أنا راهضه وغارتا دورك تشوكتا مد كميدا بان كا إيبيي طبعا ما ديليفر قرين كرت هدي أترى هدي مثلا كلونكا بدا كجرا بان كا إيبيي ما ديليفر قرين كرت يعني شيء هو إنه شيء ديليفربل شيء هو إن قفكي واحد كإيبيسي برودكتات كإيبيسي وإن قفكي كوريتين كرتي وإن قفكي سين كرتي غرركو هدي هذا سين كريم على غرر جهالته يعني لبدان runtii mararka qaar koodna waa la soo isticmaalaa midba kale laakiin Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala iyo ragga la midka ah sarkhasi iyo si fiican bay u kala saareen jahaaladu waxa weeyaan shaygii waa suuragal inaad deliver garayso laakiin aw saaftii si baad noqon kamiyadii si baad noqon mesela box xiran oo halka yaal oo wax ku jira aan la ogaan karin waxa uu yahay banka iibiye marka ما غرر صوبته وحي وجهدا وكوغو وريجين كرا لكن غدي wax ku jiraan laaqo wixii ku jiray ma laaqo contentigii baan laaqo marka jahaaladu waxa weeyaan in marka laakiin qararka iyo jahaalada oo marka ay wax fara badan yihiin jahaalada kale marka qaar waxa jira la taxamul karo wixii dadku ay aan mushkilad keeneen wixii mushkilad aan keeneen waa ogtahay waxaan u raahnaa mila barde aan yuuba lagu laqaa wixii mila barde gudahood ku jira laga yaabo inay suus iyo mid qaarkood ay ku jiraan waxa la midka guri baan ka iibiyay guriga asaaskiisu intee buu qodan yahay cidina ma taqaan gurigi laakiin waa loo jeedaa yaala waxa jira marka la taxamul karo waxa la taxamul karo oo yasiira iyo waxyaalo qaradkii shayga laga lahaa burinay yani jahaalada laga hadlayaa waa marka intifaaci shaygan laga lahaa wax aan suura gelinay لو واحد value baa qofkan waxaan ku iibsanayaa value intifaaci waa inay meesha ay ka saarayso marka jahaalada waa in shayga awsaaftiisa la garanayo xadiis baa nabiga ku kulmiyay sallallahu alayhi wasallam muslim wuxuu yiri nahaa can bay' al-hasaah wa bay' al-gharar nabigu wuxuu manhiyay bay' al-hasaah iyo bay' al-gharar bay' al-hasaah waxa la yiraahdaa qofka dukaanka inta soo gashay inaad tiraahdo kubad baan ku dhibayaa yara kubadaas shaygii ay ku dhacdo baan ka iibiyay lacag inta leeg baana bixinaysa shayga waa la deliver gareyn karaa alaabtii waxay taalaa dukaankii basadaas ay saaran tahay wada jeeda marka kubadii midun bay ku dhacaysaa laakiin ku yahay lama yaqaan kii uu noqon doono lama yaqaan taas marka waa jahaala qarar ma wa bay' al-gharar يعني غرر كان وين شيء آبق أمثلة فرق بدن بفقه قديم كأوليه سيدا بيع المضامين يبيع الملاقيح يعني أمثلة فرق بدن بعدد كفقه أخريا أي أهل كران بيوع جهالة كترته يكوا غرر كتر مهم وحا شيء قد يبين سنة ديل فرقرين كرت وحلا يابا إلا سويدي إي كومرس وحلا إي كومرس إنترنت كلجو إيدي مقرر نغني مثل جهاله مثل منه ما وعلى سويدين كرسومه عالم كان هذا الشراء وحنو باهنا إن أول دكان ماذا فيزيكال يقف كونه دكان تجو وأكتين وواحد سهلا لكن واجر إلكترونيك وحلقوا يبيع مثل لكن هذا واحد سهلا قف كأن العنتدي يكون قاعد أونلاين ولقوا صار الفرقري وهذا عكرت إن ألعاب كلا يكون قاعد أونلاين ولقوا صار الفرقري أونلاين واحد قاعد إي كوميرس يقول صور بامشة سارن صور وماشي سارن وشيء قاعد قدان لهي شيء waxaa ku qoran description kiisi iyo wuxuu ahaaba ku qoran xageebu soo galaya fact online ku wuxuu soo galaya bay'u salam soo mamnuuc ma hadan been laga sheey yani muhiim waxa description kana been laga sheey muhiim waxa qofku inuu shaygii uu keeni karo muhiim laakiin hatta store kana ugu jirto muhiim ma aha ogow qofku store kana ku haysta muhiim ma يعني لكن مهم واحد شيء يقول ديل فرقرين كر availability شيء وين واسعة مركا لأنه ولا ديل فرقرين كرا جهالنا كم شرطه شيء picture كيسنا واحد أركتا سواء ما 3D أما واحد لماذا وحكلا أركتا description كيسي وين مركا غش كذب مهم إنه كمرين وإنه غش كذب كمرين شيء كني
waa inaadan ka been sheegin markaasi in lagu soo dhilfargarayaa mushkilo male online-kii marka bayuucda mucaasirka u baahan qofku xageebay soo gelaysaa e-commerce wuxuu soo gelayaa baycu salam oo bayuucda ka mid ah islaamku uusan mincin ka mid ah oo qofku inuu shay maqan inuu intuu tilmaamo waxa iyo waxaas baan rabaa uu lacagta sii hormariyo oo yiraahdo maaragtay حتى إن العكس اللي سهر مريا نفتي هذا أباها مرة كاركود فقهاء كاركود أي كويشن قليا أفر بينو مرينا سوما أفر بينو مرينا كيش سناد يا كسناد قرنية كسناد يا نداية إذا كان قف كانوا داية كسناد قرنية قياسا محام مقنان كرا أنت هذا إنه الشيء محينو نيري وأصل كوا إباحة كاسوا قاعدة جود وأنه كذي بقش كمرية هاي وإنه ماركتي غرر وكمريه وأنا محرم هاي في ذاتي صماهي محام قباس أوران كرتان قاعدة جود أشياء معاملات ممنوعة. السلام عليكم. وحام غد مرتدي هي الشعب. ما يلا السنة يا كهذا بيوع بن كهذا هذا بيوع يقول قواعد هذا. وسؤالها سؤال هذا مفروض أن وقت كان رأينا كيف يصير هالليها أدبر هالليها ومقن وحنا رجع إلى قياسان قاعدة وقدم بيسان سلوا ومقنتين يا هي الشيخ دار ما الشيخ دار ما هي يا مقاس الشرع وحقود الربا دي أو الربا دي وين الربا كم مرة ربدي يعني وموضوع وين سوماها ربدي هو موضوع وين وحلا إلهي كدقالما كم تاي إلهي كدقالما فاكت القرآن وحا إلهي كدقالما وحكا شيء ربدي هي قطاع طرق يدك إن الفساد في الأرض تدك إن لسك الله يلقحيه أو حوله هذه وحلا هذه الدباسين هاي سته إيوه ربدي ولا ماذا الشيء القرآن كوت الماوي إلهي إنه كدقالما وحيانا كلوا فروع يعني العينة كودا بيع العينة مثلا وحربتها يعني محا كودا بيع العينة بيع له يقام بكودا يعني عينة وهي واحد كودا بالعينة وهي صح عينة وحويا بدنا وجهالة يقرر وهي مثلا قفكو إنه ده لبا شيء كان هدي أي تفاريق تاي مثلا وحن كاسينا يا $1 هدي جملتها هنا وحن كاسينا يا $0.5 صالحان في لبدي عقد مركا أديكون صورة ربطها نقطة في لبدي مركا إن مثل قوامين ويدو مدينة قوامين ويدو أو ترى سدا كوكلا تكتان وهذا كونفيوشن لقاضو ما تفاريق با كو هشيسين بس جمله كو هشيسين بيقول عينا واساس وكله اما لبا عقد لا يصلح قليه marka wuxuu soo hosgelayaa jahaaladii iyo qararkii soo gelay yani furuuc mid walba qaacidadana waxay leedahay amthila aad u fara badan oo hadaan raahno mid walba amthiladeeda aan taxano waxa laga yaabaa in asaabic u baahato mid kasta yani hadda waxaan rabaa inaan qaacido guud sameeyo wixii marka amthila iyo application-ka wixii takhriij u baahan dadkaan u daynayna laakiin waxaan rabaa inaan qaacido guud fahmno shantii marka waxay ahaayeen asl al-ibaaha inuu yahay inuu kadib qishka maran yahay inuu muharram ahayn fi dhaatihi qaran iyo jahaala inuu ka maray riba inuu ka maray sooma shanta qaacido waxaan rajaynayaa in la lato waxaan rabaa marka inaan waqtiga inta ka dhiman inaan ka hadalno laba mowduuc oo runtii casri ah oo labaduba technology-ga maanta ay keenayso yani uu fardinayo u baahan in la yiraahdo qaabkee ula tacaamulayna mid waxa weeyaan al-umalaat al-mushafara cryptocurrency waxa weeyaan waxyaalaha hadda bitcoin-ka ethereum-ka onecoin oo caalamka hadda intii muddo haystay walina runtii tacaamulkoodu aad u xoog badan yahay waliba khaasatan dark market-ka iyo waxa la midka aad ugu badan marka al-umalaat al-mushafara in lagu tacaamulo maxay noqonaysaa waxa kale u baahan tacaamulaadka kale sida forex-ka oo kale iyo wax la midka ah labada misaal marka inta aanan al-umalaat al-mushafara
aanan iyadana gelin waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo si sariica horta lacag maxaa islaamku u yaqaanaa maxaa lacag noqon kara su-aasha in la isweydiiyo soo in la yidhahdo bitcoinku ma bannaan yahay lacag ahaan waxaa ka horeysa horta lacag maxaa loo yaqaan waa maxay lacag waa maxay lacag marka istilaaxa fuqahadu yani concept of money lacag waxaa loo yaqaanaa marka waliba lagu tacriifinayo wadiifada lacagtu ay qabato inagu hadda islaamka xilligii nabiga sal alla alay wasalam ka hor lacagtu waa jirtay nabigu sal alla alay wasalamna lacagtii jirtay ayuu aqbalay oo la tacaamulay xilligii nabiga sal alla alay wasalam lacag waxaa la isticmaali jiray dahabka iyo fidadaa lacag ahayd sidii buuna nebigu ku abruuf gareeyey oo islaamkuna uu dahabka iyo fidada u isticmaalay waagii dambe xilliga islaamka waxaa yimi waxyaalo kale oo macaadina oo aan dahab iyo fida ahayn ayaa iyaguna yimi marka maxaa loo yaqaanaa fi lfiqhi alislaami lacag maxaa loo yaqaan markii la fahmo maxaa lacaga baa digital manigu ma lacag baa mise lacag maaha digital money cryptocurrency-ga aan idhaahdo laano digital money waxyaalo badan baa soo gelaya digital money waxaa soo gelaya sahalkaynu ku tacaamulno iyo kaararka bangiga aad wadataan ila moogtay qofku kaard ba wax ku iibsanaya soo ma electronic baad wax ku gadanaysaa markaad kaar ku iibsanaysid ama online wax kaga gado ama dukaan wax kaga gado waa electronic money marka concept of money waxaa la yidhaahdaa sida ku soo aroortay الموسوعة الفقهية مثلا الكويتية أو كله كل ما يكون قبولا عاما شيء كستا ودتك يقبل كران سجود كوسيط للتبادل ونقول كرا وحدتك أي وحكوك لبدشان ونقول كرا حانشي ونقول كرا هرق ونقول كرا رجحان ونقول كرا وحكا صدتك أي يقبلان إن يحكوك كوسيط للتبادل يعني medium of exchange in wax lagu kala bedesho oo qofku markaan u baahanahay anigu inaan cunto gato isagii baan isticmaalaya markaan u baahanahay inaan guri katana isagii baan isticmaalaya waa wasiid isaga fi daatihi isticmaali maysa isagii shayga la isticmaalayo laakiin ashyaadii baad ku kala bedelanaysa waaga hore waxa la barter trading wax la yiraahdo jiray oo qofkii bariis haysta hadduu bur u baahdo burkii iyo bariiskii baa la isdhaafsanaya laakiin hadda lacagtu waxay fududaysay qofkii oo aan bariis u baahnayn inuusan bariis ku bedelan wuxuu haystay laakiin lacagtu ay noqoto wasiid wax medium of exchange wasiidkii dadka ashyaadii noloshii kala fududaynaya ogow lacagtii sideedu nafci gaara ma lahan waxaan shidan hadda doolarka inaad adiga baahi ku tiri mayso cuni maysid laakiin waxay kugu sahlaysaa inaad guri ku gadan kartid inaad xoolo ku gadan kartid inaad cunto ku gadan kartid inaad waxyaalihii ashyaadii kale aad isugu bedeli kartid marka waa wasiid la tabaadul inuu yahay koow waa inuu yahay wax ashyaada lagu qiimeeyo oo maalan uu noqonayo unit of account miqyaas liqiima alashyaa ashyaada marka la qiimeynayo shaygaa qiimihiisu waa maxay laba shay inay isu dhigmaan inaanay isu dhigmin marka in la ogaado waxaa la isticmaalayaa lacag baa la isticmaalay waarid marka wax la dhaxlayo qiimaa loo bedelaa lacag baa loo bedelaa sababtoo ah wixii wax lagu qiimeynayay unit of account wuxuu noqday waa lacagtii wey shaygan waa in wax lagu u yahay marka shay la qiimeynayo wixii lagu qiimeynayo waa inuu yahay valuegiisa shayga valuegiisa marka waa inuu noqdaa miqyaas lilashyaana waa uu yahay wasiid litabaadul miqyaas lilashyaa wuxuu kaloo yahay shuruudda la rabo lacagtu inay buuxiso waa inay legal tender waxa weeye adaa lilwafaa'i lidiyuun waa inuu qofku waxaan ku dayn bixi karo ma ku dayn bixi kartaa mise kuma dayn bixi karta haddii aad dimadaada xuquuqdii saarayd aad ku bixin karto shardigaana waa in laga helo haddii aadan ku dayn bixi karin lacag maaha aadan ku dayn bixi karin kan u dambeeyo laga rabo inay buuxiso criteria lacagtuna waxa weeyaan adaa lixifdi tharwa waa store of value waa inay qofka sarwadiisu wuxuu ku kaydsan karaa ay tahay wax aan qiiman dhacayn waa arta qofku markuu rabo inuu xoolihiisa uu kaydsado hantidiisa doolar buu u bedelanaya bangi buu dhiganaya
sanad kadib baa laga yaabaa inuu isticmaalo laannu hantidii hadhow buu wuxuudana ku bedelanaya hanti buu ku kaydsanaya laakiin haddaad taraa bariis bisil baan hanti ku kaydsanaya ka war bariiska bisil dhowr saacaad markay ka soo wareegto waa fasahaadaya soo ma marka ma noqon karo store of value yani value ma store garayn karo waa hanti sax laakiin lacag ma noqon karo sababta lacagtu waa inay noqotaa wax value-ga iyo hantiga lagu store garayn karo intaas marka in fact definition-ka hadda aan sheegay caalamka oo dhan baa isku waafaqsan caalamka oo dhan baa isku waafaqsan maaha fiqhiga islaami oo keli ah in shuruudaha lacag markay noqoto laga helo then lacagtaasi ama xaanshe ha noqoto ama dahab ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku rahdaa fida ha noqoto ama warqad ha noqoto mushkilo ma laha yani dabcan laga sheekay history of money waa arrin kale maxaa dahab lacag bay ahaan jirtay fiat moneygu goormuu yimi goormaa yani dependency-gii lacagta dahabka fiat moneyga goormaa la kala saaray waxaasoo dhan yani waxay u baahan tahay mawduuc khaasa wey mawduuc khaasa wey laakiin waxaan hadda keliya inaan tilmaamo maxaa lacag noqon kara lacag waxaa noqon kara wixii shuruudahaas laga helo medium of exchange inuu yahay wax lagu kala bedelan karo unit of account inuu yahay store of value inuu yahay yani waa inuu yani shuruudahaas haddii laga helo waa lacag wey ama dhagxaan ha noqdo ama xaanshe ha noqdo wax raba ha noqdo waxaa kaloo muhiima iyadana in uu jiro xilligan hadda mucaasirkaa dowlad tabaninaysa oo dowlad aanay tabaniyin dadkiibaa mashaakil ka dhex abuurmaya nin walba wuxuu mashiin buu keensanayaa wuu iska daabacanaya waxay noqonaysaa xuquuqda dadka lagu dulmiyo saa daraaddeed baa mawsuucadu almawsuuca alfiqiya waxay dhahay xaqu isdaari nuquud huwa lilimaami waxdahu lacag waxaa samayn kara oo keli ah imaamka waxa laga wadaa dowladdaa samayn karta central bank of the government ayaa lacagta isagoo ka mas-uula ashkhaas brivatihi lacagta iyagu ma samayn karaan waxaa samayn kara oo lacagta keliya dowladdaa samayn karta haddii kale sidii waa dhexaas dhacday puntland ganacsataa mashiin keensanaysa iyo dhowr woolood markaasaa iyagoo ay roganayaan dadkii baa doolarkii iyo lacagta kale lagaga urursanaya fowday noqonaysaa wixii baa qiimo dhacaya dadkii hantidoodii baa ku burburaysa waxay keenaysaa yani fitan fara badan bay abuuraysaa waxay marka xaqu isdaari nuquuda walilimaami waxdahu walaa budda lahu min tafwiidi man yaquumu bihadihi alwadiifa liyumayis alkhaalisa min almaqsuusi fi lmucaamalaat yani waa arrin dheer imaam axmed baana runtii isaguna sidaa yiri fi riwaayati jacfar ibn maxamed laa yasluxu darbu daraahim ila fi daari darbi biidni suldaan lianna annaasa idaa rukhisa lahum rakibu alcadaa'im dadka haddii layni walba lacag ha samaysto yani mashaakil bay dhalanayaan marka lacagtii shuruudahaas waa inay buuxiso dowladduna waa inay tabanido halkaasi automatically waxaad garan kartaan inay isweydiin kartid lacagahan blockchainiska iyo ku salaysan oo decentralizedka ah oo digital moneyga ahi haddaanay dowladii iyadu soo saarin ama tabaniyo lacagnimadii shardigaasi waa burinaya marka lacagahan markaa u baahan in la yidhaahdo cryptocurrency-ga bitcoiniska iyo wax la midka ah ma lacag baa mise lacag maaha shuruudihii lacagnimada ay u baahantay marka in la isweydiiyo kow ma tahay medium of exchange dadku wax ma ku kala bedeshaan shardigaasi wax madaa barshali inay fulisay yani barshali qaybaan waa fulisay oo dad badan baa hadda aqbalay inay qaataan bitcoiniska oo meelo badan baa laga qaataa walow caalamka hadda dowlad si fiican u aqbashay aysan jirin taasi waa medium of exchange waa noqday waxaa kale oo laga yaabaa inuu noqdo store of value dad badan baa hantidooda ku kaydsada oo bitcoins yani laanno valuegiisuna aad buu kor ugu kacaya ku kaydsada dhinacana waa loo kala lacag waaye laakiin waxaanu noqonayn lacagnimadii waxaa u diidaysa in aysan dowladi tabaniyin dowlad inaysan tabaniyin dowlad marka hadday tabanido markaasi wuxuu noqon karaa lacag waxaa fadwo runtii aad u qiimo badan ka sameeyey December 2022 oo sanadkada lasoo dhaafay akhirkiisa الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار ay soo saareen iyagu waxay dhaheen waxaan mancinaynaa bitcoiniska iyo cryptocurrency-ga sadan lidariica yani taxriim alwasaa'il laa taxriim almaqaasid waxaa kaloo la oran karaa bitcoiniska waxay noqon karaan asadku waxa weeyaan badeeca inay noqdaan yani hadda
problem badani kama taagna inay badeeco noqdaan yes waxaa questionable ah oo su'aal badan u baahan in la isweydiiyo qaabka loo maangareeyo ama loo generate gareeyo yani technology-ga ay ku salaysan tahay waxa la blockchain isagu applications badan buu leeyahay waxyaalo badan baa loo isticmaalaa laakiin markay noqoto lacag bitcoin digital money ethereum ha noqoto bitcoin ha noqoto waxba ha noqoto waa asad qofku maal waa wax qofku uu kaydsanayo uu ku intifaaci karo u fiirso maalkii baynu dib ugu laabanayna yani bitcoinku maal ma yahay mise maal bitcoinku ma yahay maal mise maal ma sababtoo ah qofku ma kaydsan karaa ma ku intifaaci karaa yani baa u baahan in la isweydiiyo haddii shuruudaha ay buuxiso maalka maal waa noqonaya lacag ma yahay shuruudihii lacagtaynu ka eegayna lacag ma yahay mise maaha waxaa keliya laga yaaba inay ku dhacdo qabuul caama ma laha cryptocurrency oo hadda caalamka boqolkiiba 99 wax aqbalay waaye in yar oo iliid ah iyo dadka dabcan drug dealerska iyo money laundering waxyaalahaas baa aqbala oo meelaha mushkilada ugu weyn runtii oo uu leeyahay cryptocurrency ah dadka ku tacaamula waxyaalaha aan fiicnayn ba aad u isticmaal raba inay isqariyaan sababtoo wax la trace gareyn kara ma lama trace waa adagtay in la trace gareeyo marka dadkaas aad u isticmaalaan ومركا إليه تحريم الوسائل هي اتحاد العلماء إليه وحنا تحريمنا تحريم الوسائل وحيلا الله استعمالها هذا باوحين دراجسك يا ماني لوندرين كي وحيلا لمتك بهذا الله استعمالها لكن تحريم المقاصد ما مركا بيتكوينسكا موضوع عيسى هالكاس بان سيكون دينينا I think إن فوركس كان هذا كور إنه آدوجا هذا اللي هبين دم إنه كهذا اللي وحال ذكرت قفكوا إنه النقضه فوركسكا محاضرة ساعات زيادة بينو كتشيدني في يوتيوب كانوا كتشرتها لكن هذه الصوت كوب فاركس كبروبلم كيسو وحكتر سنة واحد ليرا دريفتيفز كو حويان أنا واحد ولا مشتقات يعني بيوع عن دريفتيفز كاهي وبيوع كسليسان سبيكوليشن واحد ليرا هذا وحكسليسان تاي بختيار نصيب إيه باتين waxa weeyaan qofkii inuu wixii gamble sameeyo khamaar bay ku salaysan tahay sababtoo in reality forexiska dadku lacag ma kala sariftaan waxay isticmaalaan waxa la yiraahdo contract for difference CFD qofku wuxuu raadinay taageeraynayaa wuxuu malaynayaa trendiga lacagtu yani sarifku xageebu u socdaa dadna waxaad ku khamaaraysa in aad ishaarto ama aad badgarayso dhanka directionku u socdo rate u socdo increase-kiisa ama decrease-kiisa difference-gaas hadhow aad kala faa'iideysa yani maaha wax qofku uu lacag waxa kala mucjiso ah adiga oo deposit-kaagu account-kaagu uu yahay dollar based ayaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waxaan isku sarrifayaa yani inay patent ay ku tusinaysaa yen iyo euro baan isku sarrifayaa midna ma haysatid يعني midna ma heli kartid aslan at the end hadafkuna uu yahay in aad batin ku samayso direction movementiga price movementiga lacagta dhanka ay u socoto yani mawduucaasi wuxuu baahnaanayaa in dad in loogu noqdo ilaa muharramaadka ku jira culimadu waxay ku sheegeen taqriiban ilaa 5 mawaanic ama muharram ayaa ku soo ururaysa forexiska oo faahfaahinteedana u baahnaanayso muxaadaratii aynu gallay oo kale la mid ah marka at the end waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo maalku ahamiyad weyn baa Rabbi subhanahu wa ta'ala u siiyay waa nolosha asabul hayaa waxay u baahan tahay waxay ka mid tahay daruuraadka shanta ah ee islaamku uu yiri in la ilaaliyo maqaasidu shariica daruuraadka ka mid ah way ka mid tahay nafta iyo aqliga iyo cirdiga iyo maalka waxay ka mid tahay in la ilaaliyo ay tahay nolosha ku dhisbanayo uu fiiriyo in dadka looga digo yani fikirkan qaabka xun ee dadku inay lacag u raadiyaan xalaal ha noqoto xaraan ha noqoto iyo in hadda siyaasadda ay noqotay wax la maal gashado oo qofku investment ku sameeyo yani cid ama inuu soo saaro cid isagu hadda contract ka qaato ama isagu kuraas ha gato ama codki ha gato ama markuu meesha tago xoolihii ummadda ee caamka ah waxyaalaha mushkiladana haysta waxay tahay Soomaaliya hadda nahay الأموال العامة أموال الدولة وأموال المسلمين ترى إلى وحكحوا عنوديسو كشخصية قف شخصية أنا حوالك داعي قف إن دكان حوالينا تكحد أما شركتنا حوالك حده وحكحون حوالي دولتنا
صد حولها دولة وحالة مسلمين تيودن نبى ومدي ودن باله واحد من يسا ومدي ودن بس حولها العنيسة ساعة هذا قفكوا إنه نبتيسم سمايو قرابتي وجوهي لي بوسسكي أما سووا كحوالة يستو يعني قيامة ولا سوي دينية قيامة مركوف إنه إلى ماشي حالة كسبانية طريقة وكب حنايو يمحى حالة قفكوا إنه فهموا I think it has an قصوري والله سبحانه وتعالى علم اللي شاتاي